rabaa wayna u ahaatay maalin walbaba nacaaya war ninkan miyaa la aamusin kari waay permanently war $100,000 hadday qaadato anaa bixinayo ninkan social media lacagtay nagu qaadato aniga personally wallahi bilaa hay'adaan leeyahay anaa intaa iibiyo daahir calasow meeshan ha laga saaro ha nagala wado aniga haddii kaleeto meeshuu jooga ha la ii sheego anaa dad u soo diray nacla aabiin ku yaale habeen walbaba naagta xumeeda hadday meesha saarnayd dhehaysan ragga iyo xaleed war habeen walbaa nala caaya annaga soo ma fahmin annaga isku soo noqon hadda wax la caayay oo intaasoo ragga i caayeen oo joogta culusay dhiloy naagtii filmaanta fasiga jilaysay laygu hayo oo aan ahay gabar caan oo aktarad ah oo Soomaaliya oo dhan ka qoslin jirta xataa one day aan ka qosliyay qof hawiyaa igu xeer galay male hawiyo oo dhan meel kasta ay joogaan wallahi afarta barjis raas casir turaas kambeene kelmadaas ii soo wada qorayeen oo ragooda ii soo fariisanay hal gabar oo aan saaxiibno ii hartay ma jirto kuwa magaalada isla deganayn oo aan isla shaqaysanaynay ba aniga ii soo fariistay kulligood snapchat iga wada caayay ayagoo intaasoo dhiba la igu hayo oo milyameey igu caayay ba intaan xiniin iska baaray oo fariistay waxay keeni waayeen basra buufsan gabadhii roommate-ka la ahayd oo Soomaaliya oo dhan ay keeni weysay ba anu social media keenay oo aan kaga guuleystay marka waxay sheekadu soo galaysaa intaas ragga Soomaaliyeed ragga daarood Ismaaciil qof bini aadan oo gabar caay ma jirto raggeeniyo dhan aniga afka liiray iga wada saarteen baarkina waa ii wada galeen aniga basra la isku kaay daawanay ma beentayba basriya aniga iyadoo la isku kaay daawanayo oo saas ay isku hortaaganahay waa kala baxnay anu waxa aqaanaa libaax baa ahay baktiga ma cuno basrana markaan wixii ka dambeeyay waa soo urtay waa bakti anu basra ma la hadlin TikTok bay iga soo daba furatay sidii in la ila qabo fiidiyowyay ninkayga la gasho 70 sano ka hor bay everyday soo dhigataa sidii in la ila qabo basra intaasoo dhiba iyadoo igu hayso bay waxay bilowday rogaal celin dagaaleed tan marka ina adeer macaan tan maanta aniga miyay ka masiirinaysaa marka nicimay miyay ka masiirinaysaa ahna faacado aan dhameey hadalka waxaan ku soo waa iga masiirsantaa waa u jeedaay waxa dhacday intaasoo dhibaato iyadoo igu sameynaysa ba anu iska aamusnaa oo ka ignore gareynay ilma adeerayaalow yesterday sharaftayda loo socday runta idin sheegaya sharaftayda dhulka la galay sharaf meesha ma taal ana hadii idin sheego Soomaaliya dhan waxay iga aaminsantahay inaan dhilaahay Soomaaliya dhan waxay iga aaminsantahay inaan filmaan sabtiyo jilay basro dhageysa hadalkaan Ahmed Soomaalida anigu miyaan ku tirin walaal warkayga muhiimadda u socda aaragsiga ha ka soo boodin muhiimadda aan dhaco Soomaaliya dhan horaa waxa loo yiri beento hadday fakato sideedaba runta waa ka ordheer beenta hadii lagu celceliyana runta waa kaataa intaasi ayni gruubu ii samaystay way aflagaadee 150 dhibaato igu sameeyay TikTok-gayga 500 kun mar ayuu iga xiray intaas dhibaateynay wax walba igu sameeyay ninkaas waa igu daawanayseen kulligiina quraas baa ku wada fadhiyeen except Ahmed Fodcad hadalka markuu inta marayo maanta shalay aniga sharaftayda haduu u socday oo basra buusa ay sharaftayda u socotay sharaftayda dhulkay la gashay hadday u socotay maanta reerkayga inay dumisana ma dumin karto aniga ninka i qabo horta sidiisaba waa libaaxna wuxuu doonu sameeyaa oo iguma iri karto anu in absamaa oo dhaqan leh oo ogaadeena ba i qabo oo coolyahana nin ay dhinaciisa soo mari karta basra ama hawaysan karta ma nin ay hooskiisa ka baqdaan laakiin labada gacmood iyo labada lugood buu ka xiran yahay kaas waa fanaan kanta Soomaaliyeed ku heesa marka ilaahay amarkiis annagu waxaan dad social media aan caadi u isticmaalaa anu comedian baa social media aan caadi baa u isticmaalaa laakiin dadka fanaaniinta ah waxyaabo badan ay ka dhowrsadaan baa jira oo anu aan ka dhowrsan sida hadda qabiilkayga oo kale anu qabiilkayga every second baa ku faaraa laakiinse dadku qabiilada qof fanaan intuu soo fariisto inkastoo fanaaniinta hawiye ay sameeyaan oo gabadhan haddan fanaanada ah oo everyday ay soo saarto saacad habar gidina ahay hees ay soo saarto everyday oo fanaaniinta hawiye official u tahay fanaaniinta daarad waa xishoodan qabiilna kuma faana ma beentayba ala kulli xaal yesterday hadii loo socday aniga suuq ma dhamay hadalkayga dhamaysana waa idinka tagaa markaas hadda waxa intaan sheega ala kulli xaal waxa idin sheegaya yesterday hadii aniga sharafkayga loo socday dhulka la galay qabiilkayga in la bahdila hadii loo socday 10 sano haday sii joogan ma jeerteen gabdhooda la guursan mayo midgeey la mid yihiin maanta midgaha bay la mid yihiin midgaana waa qofkii xun
oo baktiga cuna baktiga u xalaala maanta ninka ma jeerteen because gabadhiisa inta lagu horcaayo intuu dhaha gifti loo diraa diyaarada diracyada ila xiran yihiin maanta ani ragii difaaci lahaa duruucda ila xirteen maxaa kuu soo haray waxa kaliya oo haray waxay tahay ragga daaroodo ani meesha ila saaran ninkan warsan gali iyo wiilkan kaleeto in adeerkay ila saaran oo ay iskeen bari doontaan aqoonta u lahayn iyo abtigay murtimaal maanta waxa idin sheegaya ilaah baan ku dhaartay shalay aniga sharaftayda loo socday laakiin maanta xiniyihiina lagu ciyaaraya dhin 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 xiniyihiina saas loo boodbootinaya maanta waxa because ninka waa ibaqti jiiday wuu igu soo laabtay second laabku igu soo laabtay in adeer xiniyihiina ku ciyaaraya adinku diyaarada in dul adinku hadal idinka raadinaya ani ima doonayo this time I'm sorry uma jawaabi kar this time aniga ima rabo adinku idin raadinaya waana idinka baxay أبو هالكلمة دورنا يا جبني هالكلمة نعيمة وادكتي أنا واحد فاضانا هاي من دارو ضبانا هاي من قبل الله حوانا هاي من حرتية بانا هاي من محمود حرتية بانا هاي نعيمة وولا شيء وأنا قرب كيجا وأنا قبل أيدي قبل كستو دارو إسماعيل أنا وحي إلى متهاي قبل إلى دارتي إيو سنجلي أنت عن سوشيال ميديا تشوفين سوشيال ميديا gabadh daarooda oo Naciima ugu horeyso garabkeedaan ahay shuruushuur Soomaali hadii ay andhada ay wax way galbinayaan halkay kaga jiraan baan kala gelaya shalay Facebook bay ahayd sida Naciima sheegtay garabkeedaan ahaa waxaan xeerinayay dhaqanka iyo Soomaalinimada iyo gobonimada laakiin dhaqan waa dhaaftay waxay noqotay dhooqaysina halkay ka galaan bay ka galayaan نعيمة وحن ليه هاي يعني هاي قلنا يكون عيارة كتو عند أليسي وحنو نحي وحن هانشرنا وقرنا ساينا ذير حوي كوا اللي قدر يعي فكر كحن حوي واحد عند أليسي بقولنا السنة أنا قوم منهن أنا بقرض يدي بات هاي كبرت يدي بات هاي لأن ديرت إلهي كتحدري عن دلايا بات هاي مر والبو حوي قرب تاجنا هاي شرفت يدي بات هاي سمعت يدي بات هاي boorkaygi baa tahay anda Alice iyo annagana social media waa wada joognaa iyo inta oo hogaaminaysa godka waxa weeye godkan wada galinaa in adeer adiguna waxa weeye faraha kaba qaad annagay noo taala hal maalin baan soo hadlay maalinta aan soo hadlay kelmadii aan iri 2 sano intii uu lahaa waa ka saameyn badatay 2 sano intii uu lahaa waa ka saameyn badatay oo intoodana soo baxday markale haddaan soo hadlayna wallaahi iyo billaahi iyo tallaahi waxaan aaminsanahay inay wax weeye social media ay qasab ku joogayaan marka inaad dhoon woori annaga xiniyahaagiya mar walbana boqoradeeni baa tahay allah ku shukr ciisoon meeysid inta social media joogo oo murtimaal joogo oo kabtan ayub joogo oo caaqil ku joogo هذه horta aad iyo aad bay u mahadsan yihiin dadkana daawanaya walaashay Naciimo horta way saxan tahay waan aamusnay runaantii dee waxa dadka qaarkii baa laga yaabaa inaysan aniga aqoonin anigu nin daaroodo hartiyo waxaan ahay majeertoon Cumar Maxamuud Cabdi Ciisaan ahay nin iga xiga Naciimo Joker u malayn maayo inuu hadda meeshan ku jiro abaayadii horta way saxan tahay waan aamusnay aamuskaasna wixii uu dhalay imrihiisi waa qurannay mirihii waxaan aragnay inay maalinta ka dambaysa ka sii darayso say sheegtay way isbahaysti uu sii samaysanayo jiil isaga sii bedelay markuu maqan yahay hawsha uu sii wada sheedaanka weyn wuxuu leeyahay baa la yiraahdaa moogta kuwa yar yar oo hawsha uu qabto uu adeegayaal buu leeyahay markii adeegayaal fara badan buu samaystay oo hawlihiisa uu qabta midna waxaan ka leeyahay walaashay laguma baqti jiidin laguma bahdili karo abwaanadeena tahay walaasheen baa tahay hal doorkeeda tahay dadka noogu caansan baa taan ilaalsanayno oo aynu u dhimanayno midda soo hartay baa waxay tahay aamus hadaad shalay nagu ogeyd iyo tabliiqayn iyo masaajid ku jirid warkaygu waa cad yahay bil ramadaan baa soo socoto barakaysan bisha ramadaan xitaa ka joojin maayo haddaan leeyahay hadhow baan ku celinayaa beri baan ku celin doonaa waa suu sheegay qaniya ka ku socona